رسول الله الحمد لله إلهي mahadle saakay magaalada Beledweyne waxa ka dhacay qarax oo nin ismiidaamis ah ninkaas oo mataqaanaa runtii meel biibito dadka ay fadhiistaan oo iskaga sheekaystaan biibitadii ay ku qarxay alxamdulillah say wax u rabeen ma noqon laakiin waxa ku waxyeeloobay dhaawac dadweynaha iyo laba ramo dadweynaha kamid ah Allah u naxariista labadaasna way ku dhinteen walaalahaas 15 qofoodna way ku dhaawacantay waad arkayseen biibitaas oo mataqaanaa meel oo mataqaanaa public oo dad mataqaanaa rayd ay joogaan ay wax ku noqdeen alxamdulillah ilaahayna waa u boodeen mataqaanaa waxay la dabacsanaayeen maysa gaarin intaas ay magaalada Beledweyne ka dhacay daweerku waxa fulay hal nin oo shakhsi oo mataqaanaa soo miidaamay ajarta naftiisa oo mataqaanaa naftiisa halag ah ninkaasna mataqaanaa dhibaatadaas ayuu geystay saaki laba dhimaan dhimasho ah 15 qofoodna waa dhaawac waad garan kartiin oo maleynaa waana arki kartiin xare ciidana ma aha meesha waa biibito oo public ah meesha wax ku qornayn meesha xafiis dawladna ma ahan waa biibito biibitana cid kasta mataqaanaa wax ka rabta ku sameynayso waa public dadka soo fadhiisana oo kale kamid yihiin marka hadda ka bacdina waxa waaye sida dadaalka nabada milyan waa si wadayna insha Allah taala bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad maantay runtii waxa dhacay arrin aad iyo aad dhibaato weyn mashaqo weyn ayaa ka dhacday kadib markii uu qof isqarxiyay iskuna qarxiyay meel maqaaxi ah maqaaxidaas oo dad badan oo shacab ay fadhiyeen ilaa hadda tirada dhaawaca isbitaalka la soo gaarsiiyay waa 15 dhaawac iyo dhimashada oo gaaraysa 3 ruux runtii waa arrin aad musiibo ah maartay dhibaatadaas maanta soo gaartay dadkaas aad iyo aad maartay aan uga naxsanahay ilaahayna wixii dhaawacna Allah caafiyo wixii dhintayna Allah u naxariistaan leenahay